السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وسلامتين sidoo kale jimco wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena update-ka wararka ugu dambeeya ciyaaraha inta badan maanta barnaamijkeena waxaa kaga bagan doontaan qodobada ugu dambeeyay ee officialka noqday intaan gudo galin barnaamijka hadda channelka cusub tahay subscribe noo saaran ilowin inaad lagta nagu dhiirigeliso aan ku bilaabno qodobkeena koowaad official ninkii Jesse Lingard wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Nottingham Forest sida hadda shaaca laga qaado wuxuu la gaaray heshiis hal sano iyo qalin ku duub oo gaara June 2023 sidoo kalena xaleeta saaxiibada ninkan waxaa laga qaatay jaawada caafimaad maanta waxaa la rajayn doonaa kooxda Nottingham Forest inay ninkan soo bandhigto Jesse Lingard waxyaabaha u dagaaltama wax kale maan dhamaadka sanadkan wuxuu doonayaa xulkiisa kubadda cagta Ingiriiska inuu kala qayb qaato koobka adduunka lagu qaban doono dabayaaqada sanadkan dhankaasi gudaha qadar sida daraadeed waa official ninkii Lingard Nottingham Forest ayuu ku biiray sidoo kale ninkan saacadihii ugu dambeeyay waxaa loo xirinayaa kooxda West Ham taasoo kale inuu West Ham iska dhaafay sidoo kale naadigan ka doortay isla ciwaanada officialka aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Nicolas Tagliafico ninkan saaxiibada qiimaha badan hadda wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Lyon sida shaaca laga qaaday heshiis gaara June 2025 ayuu qalin ku duubay sidoo kale mushaaraan ninkan wuxuu qaadan doonaa sanadkii 2.5 milyan ayuu qaadan doonaa gunooyinna gadaal ayaa laga siin doonaa sida daraadeed kooxda Ajaxna ciyaaryahankan way soo fasaxday sidoo kale waxaa la rajayn doonaa maanta Jimcaha inuu soo gaado gudaha dhankaasi Faransiiska sida hadda shaaca laga qaaday isla ciwaanada officialka aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Joao Pedro hadda waa official ninkan waa ciyaaryahan kooxda kubadda cagta Fenerbahce sida hadda shaaca laga qaaday heshiis rasmi ah oo la gaaro waxaa kaloo shaaca laga qaaday kooxdiisa lagu magacaabo Cagliari ninkan inay soo fasaxday sidoo kalena agreement-gana maanta inuu kala bixi doono sidoo kale ninkan Fenerbahce ay soo bandhigi doonto sidoo kale qodobada kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Corella ninkan wuxuu sheegay kooxdiisa Brighton hadduu baxay kaliya inuu aado Man City sidoo kale uu yiri Man City waa inuu la hadlaa laakiin ciyaaryahankan waa niyad-jabsan yahay maadaama kooxdiisa adduun lacageed gaaray saaxiibada qiimaha badan ninkan lacag adag ay kooxdiisa dul dhigtay taas oo walwal ku abuurtay sida daraadeed hadda waxa shaaca laga qaaday Man City sidoo kale Brighton waxa wada socdo wada xaajo sidoo kale ciyaaryahanka wax u badan tahay kaliya inuu aado doono koox kubadda cagta Man City maadaama ninka mowqifkiisa uu cadeystay ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah walle ninkii ahaa saaxiibada qiimaha badan Dani Alves ninkan dhankaasi Mexico ayuu aaday sidoo kale wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Bournemouth sida hadda shaaca laga qaaday heshiis gaara June 2023 ayuu la gaaray waxaa kaloo rajayn doonaa maantana in la soo bandhigo ninkan sidaan ka warqabno kooxda kubadda cagta Barcelona heshiisku kula jiro wuxuu ka dhacay June bishii hore aan kasoo gudubnay ee 30keeda uu ku ekaa heshiiska sidoo kale bishan bilowgeed ilaa intaana wuxuu lahaa kooxda ku biiray sidoo kale Barcelona heshiis kalena uu ka waayay sida daraadeed ciyaaryahankan Dani Alves dhankaasi wuxuu aaday Mexico ninkan asna wuxuu u dagaaltamaa waxay tahay xulkiisa kubadda cagta Brazil wuxuu rajayn doonaa dhamaadka sanadka inuu kala qayb qaato koobka adduunka lagu qaban doono dhankaasi qadar sidoo kale ninkan waayihiisana inuu sii wato ayuu doonaya sida daraadeed hadda official ninkii Dani Alves ahaa dhankaasi Mexico ayuu ka digay wuxuuna ku biiray kooxda kubadda cagta Bournemouth sida hadda shaaca laga qaaday ciwaanada kale saaxiibada maanta aan soo qaadan karno jimcaha taagan waxaa ka mid ah director kooxda kubadda cagta Tottenham ninka lagu magacaabo Fabio Bertesco wuxuu ku sugan gudaha dhankaasi Milan sidoo kale wuxuu wada xaajood kula jira kooxda kubadda cagta AC Milan maadaama saaxiibada AC Milan ay doonayso ninka lagu magacaabo Tanganga sida daraadeed hadda official ninkii Tanganga ahaana wada xaajood ay ugu socdo kooxdiisa kubadda cagta Tottenham iyo sidoo kale AC Milan waxaa la rajayn doonaa ninkan inuu Milan noqdo ogaada Tanganga qorshaha ninka macalinka lagu magacaabo Conte kamid ma sida daraadeed Tottenham waxay diyaar u tahay ciyaaryahanka inay iska fasaxdo dhinaca kale kooxda kubadda cagta Juventus ayaa markaan la doodaysa ama la murmaysa ama sidoo kale xaajoonaysa ninka lagu magacaabo Aaron Ramsey saaxiibada qiimaha badan Aaron Ramsey qorshaha macna Allegri kamid ma sida daraadeed Juventus waxay diyaar u tahay ciyaaryahanka heshiiskiisa inay kaashayso sidoo kale magdhowna ay siiso kooxdu iskaga tago koox kale raasad welina waa la sumar laaya sida hadda shaaca laga qaaday qodobada kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah walle ninkii ahaa saaxiibada qiimaha badan Marcelo markaan wuxuu heli doonaa koox uu ku biiro sidaan ka warqabno Braziliankan saaxiibada qiimaha badan tan ilaa 2007 wuxuu ka mid ahaa kooxda kubadda cagta Real Madrid sidoo kale heshiiskan wuxuu soo dhamaaday June ay bishii hore aan kasoo gudubnay ayuu soo dhamaaday sidoo kale 34 jirkaana wuxuu ahaa koox la'aan sidoo kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ninkan guulo lixad leh ayuu la soo gaaray sida daraadeed Braziliankan ayaa koox badan loo xiriirnay sidoo kale ninkan dhankaasi gudaha saaxiibada qiimaha badan dhulka carabta looga wacday noqoto qadar sidoo kale noqoto Bahrain Imaaraadka sidoo kale dhanka Sacuudi Arabina waa loo gacan hatina laakiin waxaasna isku diinkan wuxuu diyaar u yahay
horyaalada ugu caansan gudaha Yurub inuu baaqi ku soo sida daraaddeed hadda saacadihii ugu dambeeyay waxaa shaaca laga qaaday waxaa la soo xiriirtay kooxda kubadda cagta Lazio sidoo kale Lazio waxay diyaar u tahay ninkan heshiis 2 sano inay sida daraaddeed waxa leeyahay Brazilian-kan diyaar wuxuu yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Lazio sidoo kale wuxuu diyaar u yahay ninkan mushaharada waalid uu ka qaadan jiray kooxda kubadda cagta Real Madrid inuu ka sabro maadaama hadda Lazio kaliya ninkan diyaar la tahay 2 milyan ilaa 3 milyan kaliya inay heshiis maadaama ninkan dhankaas Real Madrid markuu joogana oo mushaar badan qaadan jiray sida daraaddeed Marcelo waxa leeyahay fursadan loo soo bandhigay wuxuu diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto maadaama asna ciyaaryahanka u dagaaltamay xulkiisa kubadda cagta Brazil dhamaadka sanadka inuu kala qayb qaato xulka inuu kala qayb qaato koobka adduunka dhankaas iyo qadar lagu qaban doono sida daraaddeed waxaa la rajayn doonaa Marcelo asna ciyaaryahan Lazio ka tirsan inuu noqdo sidoo kale Serie A inuu ka dheelano wax dhibaato ma arkaan guud ahaan saaxiibada waxa halkaas inuu dhan barnaamijkeena update ugu dambeeyay wararka ciyaaraha qodobada officialka noqdo wixii maanta gelinka dambe soo kornana oo soo qaadan doona data markii kuugu horeysay boqona channelka subscribe noo saar sidoo kale naga ilowin in muuqaalka laga noo saarto aragtida comment noo reeb hadaa ka mid tahay saaxiibada hor noola jooga muuqaalka share si saaxiib wanaagsan sidoo kale channelka ugu soo biiran intaan barnaamijkan mid ku kulmina amaana Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh